السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiin waan idin wada salaamay waxaan idin rajaynayaa inaad jawi degan iyo maalin axad ah oo nasasho ah aad ku jirtaan magaalada Krefeld ee gobolka Northern Westphalia ku taalo ayaa shalay dad wadada maraya waxay maqleen qof dumar ah oo ka qeylinayso baabuurka sunduuqiisa dambe qaybta dambe ee alaabta la gashto baabuurka qof dumar ka qeylinayso kofar romkaas ayay maqleen kadib booliiska ayay ugu yeereen oo meeshii waa laga soo bixiyay markii laga soo bixiyay waxa ku jirtay meesha gabar ama naag 32 sano jir ah oo Soomaali ah oo dhalasho Jarmal haysato ayaa meeshaas ku jirtay marka waxay ahayd qof dumar ah oo la soo garaacay si xun loo soo galay meeshana lagu xiray oo meesha la geliyay ayay ahayd marka booliiskii gabadhii way ka soo saareen meesha waxay geeyeen isbitaalka markay geeyeen ayay weydiiyeen wixii ku dhacay iyo qaabkay wax u jiraan waxay sheegtay in ninkeeda oo 53 sano jir ah oo asna Soomaali ah oo dhalasho Jarmal haysta oo sidaan u galay si xunna mataqaana u garaacay meeshaasna uu galiyay afar ilmo ah ay dhaleen ay jiraan kuwaas oo mataqaana wali gurigii joogaan marka booliiska waxay sameeyeen isla markiiba ay u soo carareen gurigii ay ilmaha joogeen waxa gurigii yimid booliiska iyo dabdamis iyo ciidamo kale oo mataqaana gaar ah oo commandos ah iyo ambulance iyo waxyaabaha imaadeen taas ayadoo laga cabsi qabo odayga in uu ilmihii mataqaana afarta ilmo ee asiga iyo islaanta wada dhaleen inuu wax yeeleeyay ayagoo ka cabsanayaan marka waxay imaadeen gurigii ayay imaadeen dhowr saacadood ayay ku qaadatay in mataqaana ay meesha eegaan ayagoo iska ilaalinayo markaas inay xoog ku galaan oo xoog ay ku jabiyaan ilmahana u cabsanayo marka dariishada iyo meelay ilmaha kala hadleen gadaal dambe waxay ogaadeen in odayga uusan meesha ku jirin markay ogaadeen ayay galeen journaladu waxay sheegayaan in 5 saacadood camal ku qaadatay arrinka way galeen markay galeen gurigii kadibna waxay meeshaas ka soo bixiyeen ilmihii afar ilmo ayay ahaayeen oo u dhaxeeyo da ahaan 3 sano jir ilaa iyo 9 sano jir afartii ilmo ayay meesha ka soo badbaadiyeen waxay u dhiibeen yugan amtiga afartii ilmo hadda waxa hayso qolada ilmaha ay da'yarta ka mas'uulka ah ee yugan amtiga shalay oo sabti ah ilaa iyo maantana waxa la raadinayaa odayga Soomaaliga ah ee 53 sano jirka ah ee xaaskiisa sidaas xun u galay marka xaalka caadi maaha journalada dhan way qorayaan intaan wax arkayay hal journal qaab ahaan jinsiyadooda xataa caadiyo kuwa kale maadaama ay dadkan dad dhalasho Jarmal haysta ay yihiin sidooda ayay ku daayeen journal aan arkay ayaa wuxuu dhahay dadkan asal ahaan waxay ka soo jeedaan Soomaali hadii jaruuhi jirta markii wax xun uu dhaco in dadka loo abtiriyo meesha ka soo jeedaan la geliyo waxaan rajeynayaa insha Allah in wax walba ay khayr ku dhamaadaan arrimaha noocaas oo kale in laga digtoonaado insha Allah maalin wanaagsan